الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. waxaa horta aad iyo aad wax loogu farxaa in cid walba oo qof walba oo istaaga oo horta ilaahay ku mahadiyo رب العالمين ملك الملوك ذو الجلال والإكرام. mahadiisina wax kasta ka hormarino, shukriga nicmada ilaahay ma koobi karno. raggii diintana soo gaarsiiyey ee tadxiyooday ee horay naftooda iyo maalkooda radia allahu canhum, asxaabtii nebiga radia allahu canhum wa ardaahum. waxaan xusuustay marmarka qaarkii casuumadaha iyo tan oo kale iyo aan arko in badan oo cunadii ama cabidii oo lasoo habeeyey oo laga dhargay. almiqdaad ibn اlaswadi radia allahu canhu oo saxaabada ka mid ahaa, nin kaftamana ahaa, ayaa wuxuu yidhi aniga iyo laba kale oo aan saaxiibo nahay ba intay gaajadii naga badatay baanu indhihii iyo dhagihiiba wax ka qabo weyne, indhihiina wax ka arki weyne, dhagihiina wax ka maqli weyne. waddadaanu saxaabadii u joogsanay, cidna qaabisha waa weyne, nebigaana gartay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waana kaxeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam daaraddiisa oo ri ay ku xidhan tahay buu yidhi. ridaa caanaha laga maalo waa inoo dhex kacaba oo labadiinuna saddexdiinu caanaha markaa aad ka maashaan idinku halkaa kacaba, ani qaybteedana ii reeba. saasaanu ku heshiinay buu yidhi sal alla alay slm. marka waa iman jiray, ridaasaanu maali jiray, waanu cabi jiray, han badana nebigaan u reebi jirnay buu yidhi sal allahu alay wasalam. markaa nebigu waa soo daahi jiray buu yidhi, goordan buu iman jiray. markaa uu yimaado salaam wuxuuna salaamaa buu yidhi, yusmicu lyaqadaan walaa yuuqidu naa'im. kan soo jeedana uu maqashiinayo, kan hurdana uuna ku kicinayn. habeen baa shaydaanku ii yimid buu yidhi, miqdaad baa iska sheekaynaya. waa arrintaan uga god leeyahay nicmada ilaahayna siiyey ee shukrigeeda aanaan koobi karin. shaydaankaa ii yimid wuxuu igu yidhi buu yidhi, canihii markii aan qaybteydii cabbay oo intii nebiga u hadhay, wuxuu igu yidhi buu yidhi, shaydaankaa igu yidhi buu yidhi, hadda rasuulka waa rasuulullahi oo waa la jecel yaho meelo badan baa wax laga soo siinayaa, canaha maad ka cabtid. famaa zaala shaydaanu bi buu yidhi, kama zuulin inuu igu tirtirsiiyo inaan caanihii nebiga ka cabo xataa sharibtu, ilaa aan ka cabbi. famaa anta galgala labanu fii baطni buu yidhi, caanihii markii calooshayda. soomaaliga waaba iska ililoobay, maxaa loo nashay cabdiraxmaan oo halkaa mareen. muddaanu maqnayna soomaaliga, haddaanu yar deedeyeyna wixii. marka akhadanii nadamu buu yidhi, markii caanihii calooshayda galeen wey ayaa nadam iyo tiiraanyo iyo shallayto tii ugu dambeysay qabato. waxaan idhi buu yidhi, alla ilaahay maantaad halaagsantay miqdaadow. rasuulku hadduu imanaya calayhi salaatu wasalaam, caanihiisii markuu waayana wuu ku habaari, hadduu ku habaarana adduunya aakhiraba waad khasaartay. wuxuu yidhi amaa saaxiibaya, labadii saaxiib ee walaalahay ahaa, fanaama waa sexdeen, waa gameen. ama anigu soo maaha, waan galgalinaya caawo dhan, waxaa islahaa goormuu habaarku kugu dhici doonaa. ilaa uu nebigu ka yimid sala allahu alayh wasalam oo sidii caadadiisa ahayd, yusmicu lyaqadaan walaa yuuqidu naa'im. meeshii weelkii buu tegey caanihiisii, saa markii uu qaaday buu yidhi, lam yajid fiihi shayan, waxba kumuu helin, ila waa anaa ka cabbay. markaasuu nebigu sal alla alay slam gacmihiisa kor u qaaday buu yidhi, waa ducaystay. markaasaan waxaan isiri buu yidhi, alaana halagta ya miqdaad, hadday kuu dhammaatay. suu nebiga hadduuba ku habaaraya, bas way kuu dhammaatay. muxuu nebigu yidhi, wuxuu ku ducaystay, allaahuma acim man acamanii wasqi man saqaanii. allaahuma acim man acamanii, kan iquudiye ilaahu quudi, kan iwaraabiye ilaahu la waraabi. waana saan ku ducaynayna in sha allahu tacaala. anuura wajamaacatuhu watarisum acim man acamana wasqi man saqaana. ka bacdi nebigu markuu saa yidhi, bal u fiirsada nimankaas, duca nebi way dhacday inay dhulka gaadha ma doonayo. faqrina wuxuu ka taagan yahay halkaa inuu caanihii nebiga cabbay soo maaha. haddana wuxuu yidhi ducadaasi alla ilahaysay dhaafin oo nebiga maanta aan quudiyo. oo muxuu ku quudin? mindi baa qaatay buu yidhi. xagee buu u socdaa? ridii buu u socdaa, ridii uusan isagu lahayn. sayna ducadaa u dhaafin ayaan xaggeeda u cararay buu yidhi inaan gowraco oo maaragtay u qala nebiga calayhi salaatu wasalaam. saa haddaan ridii u imidba candhadeediiba caanaha ka buuxa. faidaa xufalun dircuhaa xufalun min allabani. waan yaabay markaasaa wuxuu yidhi, weelkii aanu haysanay kuma filla. fadalabtu inaa'an liaali muxamed,
weel weyn oo reer nebi maxamed leeyihiin baan doontay caanihii baan soo lisay waanu keenay ishrab yaa rasuul allah cab markaasuu yidhi bal labadeenna saaxiibna kici aan wada cabnay markaasaan ihi laa xaajata lii bihima iga daaha iga jiifeene aduu ii cab horta markaasuu cabay buu nebigu calayh isalaatu wasalaam warkasta uu igu celiyaa war labada nin maa noo soo kacaysid maya iga daaya rasuul allah bal adig horta ii cab ilaa aan markaan raalli ka noqday buu yidhi nebigu sucaanaha u cabeeyey u dhargay fartamaytu cala alardi min addaxiki dhulkan qosol la dhacay buu yidhi kolkaasuu nebigu yidhi buu yidhi ixdaa saw'aatika yaa miqdaad waxyaalihii aad lakhtabayn jirtay khaladaadkaagii mid ka mida weeye miqdaadow ii sheeg maxaad samaysay maanta waxaad la qoslayso markaasaan uga sheekeeyey yaa rasuul allah saasaa dhacday shaydaankii baa caawa saa yidhi marka waa kaa inaad habartaan ka cabsaday markaasuu nebigu qoslo wuxuu yidhi waa raxmad iyo risqi ilaahayna siiyey orodoo labadeena saaxiibna soo kaci waan ka wada dhargaynahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa idinku dheereeyey طabcan idinku dheereeya ma ahayn laakiin sheeko xiise lay ahayd waana xadiis saxiixa mashaayikhdu ay ku noqon karaan fi الصixaax in sha allah